السلام عليكم أصحابتك kusoo dhawaada barnaamijkeena hal daqiiqo maanta waxaynu kusoo qaadanaa Angola waa dal xeebta galbeed ee koonfurta Afrika waana dalka toddobaad ugu weyn qaaradda Afrika wuxuuna xuduud leeyahay Namibia, Democratic Republic of Congo, Zambia iyo badweynta Atlantikada waxaana caasimad u ah Luanda waana magaalada ugu weyn dalkan caasimadda dalkan waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu qaalisan ee lagu noolaado Angola waa dalka labaad ee ugu soo saarka badan saliidda iyo dhaymanka marka loo eego dalalka dhaca Sub-Saharan Africa luqadda rasmiga ee ku hadlaan waa Portuguese inkastoo ay jiraan luqado kale oo ay dadku ku hadlaan tirada dadku waxa loo qiyaasaa 1,177,674 ku dhawaad boqolkiiba 70 dadka dalkan waxay ka hooseeyaan da'da 24 haddii aan nisbeeyo calanka dalkan waa guduud madow iyo dahabi diinta ay haystaan waa Christian siiba Roman Catholic xornimadu waxay qaateen 11 November 1975 waana dalkii ugu dambeeyay Afrikaan ah xornimo ka qaata Portugiiska lacagta dalkan waa Angola Kwanzan furaha wicitaanka waa +244 furaha internetka waa .ao